saacadihii la soo dhaafay waxaa socday abaabul xooggan oo dowladaha qaliijka la doonaya in looga dhaadhiciyo weerar dhanka dhulka ah oo lagu qaado Iiraan. weerarkaasi suuragal ma tahay? maxaa hortaagan? halkee loo baahan yahay in la isticmaalo si ciidamo dhulka ah loogu diro Iiraan? macluumaadkaas aan kula wadaago. watan koowaad marka hore way adag tahay in weerar dhanka dhulka lagu qaado dalka Iiraan sababa jira awgeed, weliba sababa dhowr ah oo muuqanaya, kuwaas oo u baahan si weyn in looga taxadaro, si gaar ahaaneed dhanka dhaqaalaha iyo khasaarahaba. marka la eego dhanka amniga iyo istaraatiijiyadda dowladda Iiraan, khubarada dhanka militariga waxay sheegeen waqti xaadirkan inay adkaan doonto weerar dhanka dhulka oo Iiraan lagu qaado, iyadoo ay sabab u tahay in Iiraan ay leedahay ciidan badan, difaac adag, iyo juqraafi ahaan Iiraan inay buuraley ay tahay. dadka aanan hore u aqoonin ay ku adkaan doonto inay halkaas ay ka dagaalamaan. taasina waxay ka dhigaysaa in ciidan ajnabi ah aysan u sahlanaan doonin in horumar ay ka gaaraan dagaal dhanka dhulka ah oo Iiraan lagu qaado. waxaa kaloo jira awood dhanka cirka ah oo ciidamada dowladda Iiraan iyo difaacyo dhulka ku qotomo iyo saldhigyo ay ku leeyihiin deegaanada dhanka buuraha ah, waana waxyaabaha saacidaya Iiraan waqti xaadirkan inaan looga adkaan karin weerar dhanka dhulka ah. marka la eego marka dowlado badan ayaa lagu warramayaa hadda inay ka soo horjeesteen in weerar dhulka lagu qaado dowladda Iiraan. waxaa ugu horeeya boqortooyada Sacuudiga, waxay diiday baa layiri gebi ahaanba weerar dhanka dhulka inay ka qayb galaan ama ay ugu yaraan si toosa inay ugu soo biiraan dagaalka. waxaa soo baxaya macluumaadka ku saabsan in ra-iisul wasaaraha dowladda Qatar xitaa uu soo jeediyo dowladaha qaliijka inay ka fiirsadaan inay si toosa uga qayb galaan dagaalka, keliyana ay difaaci galaan oo ay ka hortagaan weerar kasta oo dhanka Iiraan ka yimaada. arrintan waxay u arkeen inay fursad siinayso Israa'iil oo ay fursad u tahay inay iska hor yimaadaan dowladaha qaliijka iyo sidoo kale Iiraan. waxaa sidoo kale aad loo falanqeeyay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee 24kii saaci la soo dhaafay, weerarada lagu qaaday xarumaha kala duwan ee dowladaha qaliijka, sida gaar ahaaneed xarumaha shidaalka. waxay hadda dareemayaan culays kale oo ah xidhnaanshiyaha marinka Hormuz, waxaana lagu warramayaa inay diideen dowladaha qaarkood inay si toosa ugu biiraan dagaalka. waxaa soo baxaya macluumaad ku saabsan in la qorsheynaya dhanka Ciraaq in laga soo galo Iiraan, si gaar ahaaneed Kurdiyiinta halkaasi ku sugan in la dhaqaajiyo, la maalgeliyo, calooshood u shaqaystayaal aad u badanna la diyaariyo. ugu dambayna sidoo kale ciidamada ka socda dowladaha qaliijka dagaalka sidaas ay ugu soo biiraan, laakiin qodobadaasi waxaa la sheegay inay socon waayeen oo ilaa iminkaana la isku fahmin. si Iiraan weerar dhulka loogu qaado marka maxaa loo baahan yahay? halkeena laga soo geli karaa? Iiraan waxay xuduudo la leedahay dowlado dhowra marka la eego dhanka galbeedka, waqooyiga iyo dhanka bari. waxaa hadda aad loo hadalhayana waxay tahay suuragalnimada dhanka waqooyi oo keliya in weerar looga soo qaadi karayo haddii dhanka dhulka ay noqoto. dhanka waqooyina waxay xuduud kala wadaagtaa dowladaha Azerbaijan, Armenia iyo Turkmenistan. Marwa Fertility Center waxaad ka helaysaa daweynta xanuunada keena dhalmala'aanta ragga iyo dumarka. ku dooro baaritaan la hubo, daweyn iyo beerista ubadka IVF oo la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo. mahadsanid. wargelin muhiim ah, ma doonaysaa inaad ka cumrayso waalidka oo geeriyooday ama xanuunsanaya ama aanan awoodin inuu soo cumraysto? shirkadda Al-Huda ayaa kuu qabanaysa dhammaan adeegyadaasi iyadoo cadeymo lagula wadaagayo. sidoo kale shirkaddu waxay qabataa cumraysiinta qofka doonaya in la cumraysiiyo. haddaba haddii aadan awoodin oo aad ka fogtahay Sacuudiga ama aadan gaari karin, la xiriir shirkadda Al-Huda si ay adeegaasi ay kuugu qabato adigoo wacaya telefoonada shaashada kaaga muuqdo. mahadsanid. inkastoo Mareykanka saddexdaani dowladood saldhig military uusan ku lahayn, haddana joogitaanka iyo dhaqdhaqaaqiisa military ayaa maalmihii ugu dambeeyay aad u xoogaysanayay, waxaana la sheegay halkaasi inuu geeyey diyaarado dagaal iyo agab military oo aad u xoogan. si marka weerar dhanka dhulka loogu qaado Iiraan, waxaa loo baahanaya in laga soo galo saddexdaasi jiho oo galbeedka, waqooyiga iyo dhanka bariga. dhanka galbeed Iiraan waxay xuduud kala wadaagtaa Ciraaq iyo Turkiga. markaad eegto Ciraaq, waxaa ku sugan kooxo dowladda Iiraan ay taageerto, wayna adkaanaysaa in dhanka dhulka laga soo galo. sidoo kale Turkiga, inkastoo gaashaanbuurta NATO uu ka mid yahay, haddana Turkiga wuxuu xirtay dhammaan xuduudda aadka u dheer oo in ka badan 500 kilomitir ah oo dowladda Iiraan uu la wadaago. sidaas oo kale dhanka waqooyi waxay xuduud kala wadaagtaa Azerbaijan, Armenia iyo Turkmenistan. dhanka barina waxay xuduud kala wadaagtaa Afghanistan iyo Pakistan. sidoo kalena waxay falanqeeyaashu ay qabaan inay adkaan karto in dhanka Afghanistan iyo Pakistan laga soo galo. meesha sida weyn looga shakisan yahay marka ee laga soo gali karo waa dhanka Ciraaq iyo in calooshad u shaqaystayaal halkaasi laga abaabulo. sidoo kalena waa suuragal dhanka hawada ama dhanka badda in laga maro haddii la abaabulo ciidan aad u badan oo midaysan, iyadoo xisaabtana lagu darsanayo natiijada dhanka dhulka lagala kulmi karo, iyadoo dhanka hawada iyo duqaynta hadda marxalad adag ay ka taagan tahay.
qaar ka mid a falanqeeyaasha marka waxay qabaan in uu jiray iskuday la doonayay in sacuudiga iyo qatar iyo imaaraadka carabta iyo kuwait iyo dowladaha khaliijka in lagu qasbo inay si toosa uga qayb galaan dagaalka, laakiin ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda qatar ayaa la sheegay inuu ku baaqay in dalalka khaliijka aysan ku degdegin dagaal toos ah oo iiraan ay la galaan, isagoo ka digay inay tani fursad weyn u noqon doonto maraykanka iyo israa'iil sida ay doonayeenna ay wax walba u dhacayaan haddii dagaalkaas ay ku biiraan dowladaha khaliijka. marka taa laga yimaado waxaa jirta akhrin kale iyo kaarta ay dowladda iiraan ciyaartay iyo akhrin ay sameeyeen dowladaha khaliijka. waxaa kayd ku jira ilaa iminka oo aanan la adeegsan hubka xuutiyiinta dalka yemen. waxaa la isweydiinayaa marka maxay xuutiyiinta dalka yemen maalintii afraad ee dagaalka isagoo socda ay u aaminsan yihiin ilaa iminka. waxaa arrintaasi ka jawaabay mas-uul ka tirsan xuutiyiinta dalka yemen oo warbaahinta la hadlay. mas-uulkan waxaa lagu magacaabaa xazaam al asad. waxaa xubin uu ka yahay xoogaga xuutiyiinta dalka yemen, waxaana uu shaaca u ka qaaday dhowr arrin oo sabab u ah in xuutiyiinta ilaa iminka dagaalka aysan si toosa ugu biirin. laakiin tan koowaad aan kula wadaago waa inay keyd yihiin oo ay gaatamayaan islamarkaana ay gaadayaan dowladaha khaliijka qaarkood inay dagaalkan si toosa ugu soo biiraan. sababta kaydka loogu dhigayna waxay tahay inay iyaga ugu dambeyn ay mashquuliyaan haddii dowladahani khaliijka ay kusoo biiraan dagaalka, inay iyaga dhankooda howlgalka kusoo biiraan oo ay mashquuliyaan dowladaha khaliijka, si gaar ahaaneed sacuudiga iyo imaaraadka carabta oo horey heshiis ula gaaray dowladda iiraan. qodobkaasi waa kan koowaad oo xuutiyiinta ay la aamusan yihiin. tan labaadi waa in qiimeyn ay sameynayaan hogaanka ugu sarreeya xuutiyiinta dalka yemen sida sargaalkan uu sheegay telefishinka aljaziira. arrinta saddexaadina waxay tahay inay sugayaan amarkama dambaysa oo dhanka iiraan ka yimaada, si la mida sida xisbullah amarka loo siiyey oo ay dagaalka ugu soo biireen ilaa iminkana ay adeegsanayaan hub aad u culus. xuutiyiinta markaa dhammaan arrimahaasi ayaa qayb ka ah waxyaaba ay la aamusan yihiin iyaga oo gaatamaya. waxay ka tacsiyadeeyeen geerida aayatullaahi qamanaay. waxaa sidoo kale la sheegay inay iyagana kayd u yihiin dhanka xiritaanka baabul mandab oo haddii mustaqbalka loo baahdo qayb ka noqon karta kaartada ay iiraan ciyaarayso iyo culayska caalamka lagu sii kordhinayo, si lamida sida loo xiray biyaha gacanka hormuus oo kale. waxaa kaloo ay si weyn ula socdaan dhaqdhaqaaqa militari ee dhanka biyaha badda cas, waxaana ugu dambeyn la filayaa in dagaalka ay ku soo biiraan haddii xaaladda ay isbedesho. mar walbaana waxaa la sheegay inay yihiin ciidan kayd ah oo lagu tashanayo. dagaalka wuxuu galay maalintii afraad. waxaad moodaa duqaymo culus dhinacyada inay isweydaarsanayaan. dadaallo diblomaasiyadeed ayaa dhinaca kala socda. hadallo ayaa warbaahinta la isu marinaya kuwaas oo fasiraad guud ka bixinaya xaaladda sida ay tahay iyo sida ay dowladaha qaar ay ugu adag tahay inay sii dagaalamaan. in ka badan 7 maalin dagaalkan haddii uu socdo marxaladdu aad bay isu bedeli doontaa, maxaa yeelay marinka hormuus oo hadda la xiray keliya saameyn kuma yeelan doona khaliijka wuxuu saameyn ku yeelanayaa guud ahaan caalamka iyo dowladaha qaaradda yurub. waana taasi midda keentay hadda sarukac weyn oo dhanka shidaalka in laga dareemay guud ahaan caalamka. wadamada qaaradda yurub oo kale 50% ayuu sare u kacay. ma waxay ku qasbanaan doonaan dhanka iyo ruushka inay aadaan oo markii hore cunaqabatayn ay saareen, haddana cunaqabatayntii miyay iska hilmaami doonaan? maxaa yeelay dowladihii inta ugu badan kaafin jiray caalamka ee trilyan shidaalla ah soo saari jiray gebi ahaanba waxay ku dhawaaqeen inay shidaalkii ay joojiyeen. goobay marsiyaanna ma hayaan. maraykanka haddii uu haysto bedelka dowladaha carabta oo dhanka iyo venezuela 20kii sane ee lasoo dhaafay cunaqabatayn ayaa saarnayd. inta badanna infrastructureka yacni nidaamkii lagu soo saari lahaa shidaalkaasi aad uma horumarsana. inta dagaalkan uu socday in la horumariyana aad ayay u adkaanaysaa. sidaa daraaddeed caalamka ayaa isla qaylin doona dhanka shidaalka marka la eego iyo dhanka cunnada. geyiga soomaalida markaad eegto inta ugu badan ganacsigooda imaaraadka carabta iyo waxa uu ku xiran yahay ee dalka turkiga. hadda durba saameyn ayaa la dareemay, waxaana sare u kac weyn uu ku imaan karayaa qiimaha quutul daruuriga, shidaalka iyo wax kasta oo ay soomaalida isticmaalaan. maxaa yeele dibadda ayaa laga keenaa. waxaad moodaaba in sanadihii ugu dambeeyey laga faanayay in geyiga ama dhulka waxyaabaha ka soo baxay soomaalida ama beeraha in la isticmaalo, oo beeraleydiina waxay ku mashquuleen inay $20 ama $50 oo telefoon loogu soo diro ay sugaan. ganacsatadiina kuma dhiiran inay maalgelin xoogan ku sameeyaan beeraha iyo warshadaha iyo wax soo saarka, keliyana waxay eegeen inay dibadda ka keenaan waxyaabaha ay soomaalida adeegsanayaan. soomaalidana inta badan markaad eegto markaad tirahdo sheygan dalku ka soo baxay iyo sheygan dibadda laga keenay, kan dibadda ayay door bidayaan. waana waxaa hadda keenay khasaaraha lagu jiro. ganacsato badan oo soomaaliyeedna ay ka walwalsan yihiin maraakiib badan oo ay soo dirsadeen ka hor dagaalka, kuwaasoo hadda xaniban, qaarkoodna laga yaabo waxyaaba dhici karaya ama isbedeli karaya inay maraakiibtaasi ay sidaan
oo qaarkoodna laga yaabo ganacsigii ay ugu talagaleen ciidda oo kale inay soo wadeen. marka taa waxay keenaysaa caqabado waaweyn markaad eegto geyiga soomaalida iyo waxyaabaha loo iib keeno, waxaana tani ay fursad u noqon doontaa ganacsato badan oo soomaaliyeed inay dib u fekeraan oo ay ka fekeraan maalgelin in lagu sameeyo beeraha iyo warshadaha, kuwaas oo looga maarmi karayo in waxyaabo badan dalka dibaddiisa loo doonto. hadda way jiraan warshado laga sameeyey geyigeenna, laakiin waxaa muhiim ah in lasii laba jibaaro. waxaan arkayay warshado soo saaro daqiiqda ama burka iyo warshado kale oo deegaanada somalilan laga hirgeliyey iyo kuwo kale oo koonfurta laga hirgeliyey. waxaa muhiima marka in la isku tashado. bal ka waran haddii dagaalkan uu socdo in ka badan inta la malaysanayo, maxay soomaalida ku noolaanaysaa? beerihiina hadda lama tacban, abaar ayaa ka jirta geyiga meelo badan, maxaa lagu noolaanayaa? waa waxyaabo laga sii baaraan dego mar walba, sanado badanna la qiimeeyo. waxaan filayaa tani inay cashir weyn ay noqon doonto. haddii baabul mandab lasii xirana xaaladdu ay kasii daraysaa oo maraakiibta wareeg dheer ayay soo geli doonaan. haddii wareeg dheer ay wax ku yimaadaanna shaygii shalay ku imaanaya $1 waxaa laga yaabaa inuu $10 iyo ka badan uu ku yimaado. aan soo laabanno, aan kula wadaago macluumaadka kale. maraykanka diyaaradihiisa shidaalka hawada ku siiya diyaaradaha dagaalka oo aad u badan ayuu gobolka usoo diray. sidoo kale waxaa lagu waramayaa hub badan in lasoo diray, kuwaas oo soo gaaray deegaanada Israel. marka la eego dhaqaalaha tirada badan ee dagaalkan ku baxayana maraykanka aad bay uga adkaan doontaa. khubarada ugu badanna waxay isku raaceen in maraykanka uu ku qaldanaa weerarka, si gaar ahaaneed beegsiga la beegsaday hogaanka dowladda iiraan oo la filayey in wax walba ay isbedeli doonaan marka hogaanka la bartilmaameysadana iiraaniyiinta isdhiibi doonaan, laakiin taasi ma aysan dhicin. sidoo kale aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee soo kordhay tani intaan macluumaadka kula wadaagayay. seeriga digniinta ayaa isqabsaday magaalada caasimadu ah dalka Jordan oo Ammaan ah, waxaana lagu waramayaa in markii labaad ay tahay muddo saacad gudaheeda oo seeriga digniinta uu isqabsado. sidaas oo kale Jordan waxay shacay ka qaaday inay soo rideen 4 ka mid ah gantaaladii ka yimid dhanka iyo dowladda Iiraan, qaarkoodna waxaa la sheegay in lagu soo riday dhanka daanta galbeed. dowladda qatarna afayeen ayaa u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Maajid al-Ansari lagu magacaabo, waxaana uu ka hadlay beegsiga dowladda Iiraan ay weli ay ku wado dhulka dalka Qatar. waxay Qatar sheegtay sidoo kale inay soo rideen diyaarado drones ah, sidoo kale diyaarado ciidan ayay sheegeen inay soo rideen oo ay leeyihiin Iiraaniyiinta. ka hor intaana diyaaradahaasi la soo ridin, afayeenku waxa uu sheegay in fariin digniin ah la gaarsiiyey. xaaladdu aad bay uga adag tahay dowladaha khaliijka, weli qaarkood waxay ka baqanayaan in xaaladdu ay kasii darto. Israel malaayiin ruux ayaa weli dhulka hoostiisa ku jira, xalayna gantaalla aan hore loo arag ayay adeegsatay Iiraan. dhanka iyo Lubnaan markaan eegno, waxaa lagu waramaya gantaallo badan inay ku dhaceen magaalada Beirut oo caasimada Lubnaan ah. Israel waxay sheegtay ilaa 40 goobood inay bartilmaameysadeen oo ah goobo ay ku sugnaayeen Xisbullah. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Ruushkana Sergey Lavrov waxa uu ka digayaa sii socoshada dagaalka iyo qorshaha Maraykanka in uu sababi karayo in dowladda Iiraan ay ku dhiirato soo saaridda hubkeeda nuclear-ka. safaaradda Maraykanka ee magaalada Masqat oo caasimada dalka Cumaanna waxaa shaqaaluhu ay ugu baaqday inay raadsadaan goobo amni ah. wararka kale ee soo kordhay haddii aan eegno, seeriga digniinta ayaa isqabsaday dalkaasi Bahrain. Iiraan weli duqeyntii ayay wadaa. Sacuudiga waxay cambaareeyeen bartilmaameysigii maanta la bartilmaameysaday safaaradda Maraykanka ee magaalada Riyaad oo caasimada dalka Sacuudiga ah. sidoo kalena wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Kuwait ayaa qoraal soo saartay, waxaana ay sheegtay in Iiraan bartilmaameysiga ay bartilmaameysanayso safaaradda Maraykanka ee caasimada dalka Kuwait inay tahay ku xadgudubka xeerarka caalamiga. dowladda Qatar haddii aan eegnana, hay-adda tamarta ee dowladda Qatar ayaa waxay shacay ka qaaday inay joojin doonto soo saaridda qaar ka mid ah kiimikooyinka iyo waxyaabo kale. tanina waxay qayb ka tahay baa layidhi saameynta dagaalka dowladda Iiraan lagu hayo maalintii afraad. wax walba oo soo kordha waan kula wadaagi doonaa. waad mahadsan tahay. nabadgelyo.